marka qaar waxaa kugu dhici karo waxyaalo yar yar ah oo aadan malaysanaynin laakiin dad ay ku dhacda jiro. odayaal Soomaaliya meesha laga qaaday Turkiga la geeyey shir ayaa loo waday hoteelo caalami ah la dejiyey marka nin oday ahaa wuxuu garan waayey biyihii miyaa aduu cilo ka qabsatay oday saaxiibkiisa ah oo qolku dhegan ayuu sir asaa kugu dhaamee soo kiciyo waxa tira balkaale meesha ila fiiri marka kaar yar la bixiyaayo dee artay alaabada kaarka lagu galo lagu furto asoo kaarka hore u soo qaadanin ayuu alaabkii intuu ka soo baxay oo kii kale ku qaracay waana feero qawiya alaabkii way soo xireen odayaashii cid walba isu tageen alaabkii waa la riixay qatarkii waa la jeejeeday wax furmaya ma laha yaa uga sutay meesha gudaha ku jira cidna uga sutay yaa ka soo xirtay waxay ka soo xirtay ma aqaan shaydaan xirtan ma leeyahay bismillaah danta waxay tagtay in hoos loo soo dejiyo odaygoo feero qawan hotel loo keenay receptionkii kadib maamulkii iyo dib loogu furo macnaha qof odayga waayeelkii hadduu ogaan lahaa wacyiga ah mushkiladda ay mataqaanaa kaarkaas uu leeyahay markuu soo baxayo hore kasoo dafi lahaa ijaabku soo gashan lahaa nin qisadaas maqlay oo dadaalkaas inuu ka badbaado go-aansaday ayaa wuxuu sameeyey markuu qolkii galay ayuu kaarkii wuxuu gashtay walletka jaabka la gashto ayuu gashtay qolkii waa mugdiba wadaarmaba laanna markii meesha la galo in haddana meel la geliyo oo qolkii ku iftiimo waa mogtahay telefoon uu qaatay rifshi ku wacay wuxuu yidhi qolkaa dhex fadhiya mugdi waa korte waa ga maqan tahay kaarkii awale waa hayayo albaabka meelka jaxan mujid ahaa waa la tilmaamo meesha galaliyo dhulkana isla hilaacay hal mar macnaha waa wax u yar waa nolosha personalka ee qofka taabanayo macnaha kama hadlayno in laga shaqeeyo iyo shaqooyin iyo shirkado iyo wasaarado iyo hay-ado iyo ganacsi iyo mashaariic waxbarasho in lagu qabto kama hadlayno waa nolosha personalka waa tusaalaha ugu yar ardayda aan soo jeesto waxaas laga sheekeynayo mustaqbal la yidhi macnaha dalkan meesha u socdo mustaqbalkiisii xidigihii ka shaqeyn lahaa inaad noqotaan ayaa lidinkugu wanqalay waa inaad ka soo dhalashaan oo aad noqotaan dad u qalmo magacaas IT marka laba tilmaamood ay leedahay mar kasta munaasabad kasta waa ku celiyaay ardayga waa inuu ogaado waa marka koowaade waxa loo yaqaano fuduulka ama daandaansiga waa inay tilmaamihiina ka mid ahaato macnaha qof edeb badan oo aan far dhaqaajinaynin IT iyo teknolojiya waxba kama keenayo laakiin qofka fuduulka badan ee waxaan maxaa laga wadaa meesha maxaa loo taabtay qodobkan maxaa meesha loogu qoray nakista u leedahay macnaha ayaad ku ogaan kartaa waxaan wax kasta waxay yihiin liannahu waxaan hal abuur waayo bini aadana maskaxooda mataqaanaa kasoo alifay bini aadankaasna isku day un macnaha iyo fuduul ayaa gaarsiiyey inuu horumarkan gaarsiiyo oo laga yaabo 10 tijaabo ama 100 tijaabo inay ka khaldameen tii 101 ama 102 in u meel martay labo waa wax u baahan ilku hayn macnaha si joogto ah loo socoto mar walba update cusub soo baxo uu isbedelayaa farshinka taqaanay ama programka taqaanay software-ka ahaa ama farshin cusub soo baxayo ama istaan laga guuriyaa oo laga marmayo mid ka fiican ayaa la soo hindisiyaa waagi hore waxaa laga yaabaa in oo software loo helo inaad cajal CD la soo gadanayay computerka la gelinayay lagu shubaayay oo adiga CD-gaas iska lahayd hadda laakiin laga yaabo wixii inaad online ku gadanayso oo kood intuu kusoo dhaco markaad lacagta ka bixiso koodkaa isticmaalayso waxaaga aad ku isticmaalayso marka muhiimadda waxaa waayo inuu bato dabagalkiina labo ilku haynta oo ah update-kii waxaan socda inaad la socotaan midda saddexaadna waxaa weeye sabar ay u baahan tahay hawshan haddaad sabartaan waad ka miro dhalinaysaan laakiin maalinta koowaad wax kugu adkaadaan haddaad cararto hadde waxaa waa saad u carartay waaye qof dhabarka jeediyey waa la yaqaana meesha ku dambeeyo ma rabo inaan warka sii badiyo oo waktigii waa gabagabo wax badan oo dhihi lahaana horaa loo yiri annaga waxaan ka socdaa macadka isgaarsiinta qaranka oo raacsan wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada xukuumadda Soomaaliya macadka wuxuu kamid yahay xarumaha dawladda ugu talagashay hawshaan inuu gacan ka geysto
waana wadnaa hawsheeda oo mataqaana waa ku jirnaa ha noqoto koorsooyin toos ah oo la siinayo muxuu ahaa shaqaalaha dowladda ha noqoto kuwa la siinayo ardayda iyo cid kastoo danaynayso barnaamijyo u gaar ahoo sanadlo ahoo sanad kasta bisha abriil la qabto oo gabdhaha si gaar ah wax loogu baro oo 4 sano u dambeysay ilaa ku dhawaad 600 oo gabdhood ay ka faa'iideysteen waxaa sidoo kale hadda aan heshiisyo la galnay jaamacado dhowr ah kuwa kalena mataqaana waddada kusoo jiraan oo ah in internshipka ardayda ay ka qalinjibinaysa kuliyadaha IT-da iyo telecommunicationka inuu macadka qayb ka qaato arrimahaas marka waa bada tabaarig mar kale mataqaana aan u mahad celinayaa iyo inkastoo cid kastoo ka geysatay marka waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.